الله وبركاته وهذا السلام الدمان ومدة الصومالية ميل البودجوكتين سودا وهذا حنا كو عصنا هادو فيديو قاعد نسوي قرنات سبسكرايب لايك شير كومنت قرب بدنات كسو بحساب لايك فرا بدن اسكا سار لايك تلعق ما هو فري وحين فيديو قارسي كرتا اما يوتيوب قارسي كرتا ميل ساري maanta yaa ila joogo laba nin oo taqaaniin gacmay Cabdiwahaab yaan ku hormari doonaa su'aalaha maanta waxaan wataa su'aalo waxaan rabaa nimankan inaan su'aalo weydiiyo idinkana su'aalahaas commentiga uga soo jawaaba marka ugu horeyso waxaan su'aasha weydiin doonaa ninka la yiraahdo gacmay oo hadduu ifiiro tagin oo iga cabsaaya oo maleyso soo waran gacmayniyo waxaan ku weydiinayaa intaad adduunka joogto su'aasha wixii kuugu daray adduunka intaad joogto wixii kuugu daray oo ka qalqashay ama kuugu dhib badnaa ama kuugu xumaa maanta noo sheeg horta waxa weeyaan kulay waxyaabo ka badiyaa waxa ka yaabiya iska badan yahay laakiin inta aan xasuusto hadda tii igu darnay ayaan bal yarta taabanaya ma garata haye waxa dhacday bari waxa weeyaan anagu waxaan deganaa degmada Afgooye gobolkan Shabeellaha Hoose marka waxa la yiraahdaa dawladda Soomaaliya waxa la leeyahay laga rabaa dawladda Soomaaliya iyo scholarship ayay migraanaysaa ay u soo bandhigtay degmooyinka haye Afgooye ka ahaan waxa uu yiri saddex migraanaysaa dhalinyaro oo scholarship ka migraanaysa wadanka China ku soo bartay iniga baahan yahay oo dalka wax soo barta waayahay dooli badana kugu maqan caawada ka soo dooliyaal badan oo cunaniga dooli bashire waa waxa weeyaan dooli waxa shaqo kuma leeyahay waxa weey wax barasho waxa laga hadlayo iyo heer jaamacadeed cuntada meesha laga cunaa dooli ugu ama bariyaad waxay soo baxeen marka nadiif u dhulkaay markaas saddex dhalinyaro ayaa degmadii laga soo xulay Afgooye ahaan saddexda dhalinyarta ayaan ku jiray waxa la yiri wadanka China ayaa scholarship wax ku soo baranaysaan wadanka ayaa wax ku soo baranaysaan waa gartay saddexdayadii lana soo xulay baa migraanayay airportka Muqdisho aadan cadda ka duulay China ayaa tagnay haye saddex sano oo waxaan soo qaadanay migraanayay scholarship saddex sano oo high scholarship oo master waa gartay masterkayga markuu noo soo dhamaaday wadankii dib ugu soo laabanayna diyaarad baa wadankii China diyaaradii marka soo raacnay markii waxbarashadeedii noo soo dhamaatay diyaaradii markaan soo raacnay ee waxa weeye ay soo duushay ee waxa weeye wadankii Soomaaliya oo soo qabatay ayaa markay soo maraysa meelaha waqooyiga ay soo marayso intaana waqooyi soo gaarnay markay badweynta soo maraysa badweynta shakadaha badweynta markay soo marayso ayuu badiyadii tiri hoos u kacday oo korod baa xadigtay sida uu baa la isku wada fiiriyo waxa la yiri diyaaraddu tankeedii baa dhaaftay tankaysi zayd ee wadaas dhaaday tankaysi day dhaaftay uu baa la yiri dadka qaar baa laga tuuray diyaaradda laga dishay hala dhimo miisaanka bismillah doonti liibiya soo xasuustay isxilqaam waxay jiray sida inta la isku fiiriyo uu baa saddexdayadaas wax madow ku jira waxa kale oo wada cadaan saddexda midmado laga dejiyo marbaasha laga tuuro isxilqaam la dhintay saddexda midmado la tuuro نمر هكذا مقرات الجامعين أنا وفهمنا سفيان الباب بعدين على فرد بخ الباب قاعد يلا فرد أيها سدح المدود دي سدح عيدي ولا يلا نقصور دقي سدح عيدي هذه اللي نقصور دقي هذا لو يلا ها ني والله ونفت هذا بالباد وقال لي مقرات وقال لي تسمين بالباد لي بدوين على جوجا بس أنا قال لي يقول رجال باب السامك اللي ترى سام مقرات اللي يقصي داي سيدا هذه اللي سيدا مركب طاير خلاص كمل طاير كورة أيها كلو شا سانو شا لابد يكلا ليجا سو دبا ميسي لابد طاير دبا يجنس دي مغنيت كوغودين سيدا سانو كلو ناس دحي طاير دحي طاير بس سانو كلو نا وحبا إذن قاري دبايشة أنا جاو ريو مركان مرايو سلا مركان مرايو ميها قبله دو قوي مرايو مسانو كوسو فيري مركان سلا وين مولا هدول سومري كوسو قادو ماسي واسيدا يو بومب بارشوت waxay ugu caawin waayeen fadari meel waxa weeyaan degmada boor wadina cad xigta wadina cad xigta ay masaajku saas gumisay nit tigriir kido ka saan u dhacay waxa la isha sheegay 300 qof ku nafsay
لا اله الا الله dhulgariirkii meeshii ku dhacay ballayga ka qodmay ilaa hadda magaraysaa heeri weyn waa laga dhacsaday halka ma ka soo magaalada ma dhinaca ka soo galaan oo bodweyn wareeraha horta oo faa'iideysa dad balli biyo laga xagu sameeyay laakiin geesay laakiin dad badan faa'iidada ka badan hadda lagu qabo gacmo 300 qof way tagay 300 way tagay kuwaas mid sababtiisa ku maartay bas waa kii kale ee labaad sidoo diyaaradda ismagraysa xaqiisna uga lushay dambe labadii taariikh dabo kala haysteen ayuu meel xuduudda Itoobiya xagga Itoobiya ayuu sii daayay markuu dhul oo arkay Itoobiya badan oo dili kaasa ka faa'iido badnaayo meesha ku dhacay deeqo meel carro oo deeqahay saaduu la siibtay faraxtiga oo soo jeexay webiga beledweyne mar la jawhar la shabeelo hoose mar waa siriitada ku soo siriitay Itoobiya soo jeexay qaracdi hadba soo bada ka galaysno waxa weeyaan meesha u dilaaciyay webigaasna laga marafacaadsado la ilaaha hor faa'iido ila keenta ninkaas ayaa soo dhaxdhacay ka saddexaad ayaa magarayay igu maqaala kii saddexaad Kenya Madeira markuu joogisna sii dareeri halkaas ugu diyaar gureysa kuna tira badan oo magarayay qoladiisa ka weynida ee Kenyaati لا لا نيكاس غولو كينا والله غوليسي waa guuleystay kaasina ka 300 oo magaraysa Kenyaati ku dilay marka taariikhda ana igu darnay taariikhdaas aan ugu magaraysa balaygaan qoday balayga magaciisa xaal loo baxsh aragranu أنا ما كان ويا بليغاس بلي برواقة ليه صوتي تالو برواقة بليغاس ما ماشي صدق بقول كل بتالو برواقة والو برواقة بيا لو درجي بيا بعد صدق قفنا فوز اللي كان بيا بقول بعد ما لهين بيها واحد نروش بيا علي مريكا نداتك لما تهيج على جوا علي نو نو لايف الله بس نو الجري بيا مجرى بيا مجرى مركب ما دام لي نو لايف نو وتا نو مجرى هذا بيجرى هذا لا بيو كان نيكاني وحان سين لا بلاد شرف سين لا بعواني واجرت waxaan ku soo soconaynaa sheekada waxaan u leexanaynaa aba aan u leexanaynaa dhanka Cabdiwahaabo soo dhawo waxaan ka rabnaa intaad nooleeda wuxuu kuugu dhib badnaayo ku soo maray gacmay waa noo sheegay laakiin mid waxay noqotay cajiib le صح bal adiga maxaa kuugu dhib badnaa intaad nooleeda والله يعني waxyaabo badan horta soo maray صح ان wax yani aan maanta aan lagu soo koobi karo inta soo maray صح laakiin waxaa lahay geeri waxa u dambeysay Soomaalida ee way xalada bay sii sidii kan la sii wada Allah moogtay horta ani shalay horta la iga gashtay wax badan ani dad waa waabsaday laakiin ani shalay gool macaan badan la iga dhigay shalaydan qoyan waxa way maanta xataa guri dhan kama soo bixnani صح nin saaxiibkay horta helay صح nin saaxiibkay helay waan u tagay wuxuu soo dhahay saaxiibo صح marka anigu isma lahayn waxba meeshan aan kala kulmaysa ama maanta waa lagu gaada isma lahayn marka aniga saaxiibkay uu maaday wuxuu ii sheegay yani hadal aanay oo saxna ah laakiin markaan si aan u fiiriyeen oo baraanki ugu rabay aniga ma fahansanin laakiin kaamiradi waxba u qarsaneed oo u maaday wuxuu yiri brother maxaa ku dhacay oo igu imaan weysay xaaladeeda ma maqlin maxaa dhacaan ku maxaa ku dhacay markaas uu yiri ma ogid ma inaan 10 saacadood aan meed waxba dhaamin oo meel yaalay oo kom ku jiray markaasaan ku dhahay subxaanallah nin maxaa kugu dhacay bismillahirrahmanirrahim anigii naxdin ruuxan dhaa saaxiib wallah waa ku xumay maan ogeysaan maxaa dhacay markaasaa maxaa se wax ku gaareen adiga aniga walwal asaga ileen asaga wuxuu ka wataa quraanki markaasa ma og aniga ma fahansani markii dambe xanaaq aniga markaasa ku dhahay ruuxan maxaa ku dhacay saaxiib maxaa dhacay ninka wuxuu leeyahay yani 10 saacadood aan meel yaalid aniga waxaan u qaatay yani nin kooma ku jiray إلا أصلاً ميد وحمد دامينو يري واصحي وجي في 10 ساعات قفور داي ميد محورما كومن وحمد دامش مركاني أورد شلي تاس أورد لاقي قشتي لكن تاريخ بدنا وحجرو عن لسوق كوي كرين دتك غير هذا أول شيء كينا وحاولنا على شرق متام كعب سنة مقرتين لكن شلي لكن قول في عن هلا قشتي هذه قف كنا هذا 10 ساعات ميد وحمد دامين حكوا صنع عايز لما كومون كان جالس ما شاء الله صدق عيسى أنا ويا وحسنا متى قال صومالي مقتة أنا خربان كم أركن صومالي مركي اللي جودتك حلوليه متخانة شعبان كنا دمتو كنا دلتو كنا أرستو اسكو بدنا ولوليه مركز حسنا شعبان كنا شعبان شعبان صح حسستي أنا شعبان قربان مركي ما أقول جرين لكن صومالي بيش شعبان كم أرتاني يقولوا كم بيحجرين هذا أنا وحاول حجر متخانة
jikada iyo qolka u dhexay jiray صحيح hataa inaa sanbir hataa waxas shacbaan waa meesha ama shacbaan kula tagaasay Soomaali shacbaan kala dhintay u maleeyaa Soomaali waa garta waa sheeko qurux badan aad bad aniga wariyaha su'aal ma wariyaha ugu fiican baa inuu weydiiyay waxyaabaha kugu yaabka badnaa inta wax wareysanaysay ama inta soo joogtay ee barnaamijyo aad diyaarinaysay maxaa kamid ahaa soo daabal hadaha xigmad baa waxa wariyaha Abdi Wahab iyo gacmeeyo aniga horta beentiin nabad gaarta maayo anaga been maan saxda ka diyaarada soo jeexay way ka soco dacbala qabad labaad dilay been ma sheegay wax badan maayo ma faa'iido badan oo keenay midda igu dareedan idin sheegay haye aniga hadda ka hor anoo socdo oo guriga u soo socdo xaafadda waxaa dhacay shaqanka صح guriga u soo socday صح ma taqaanaa adiga geed oo la yiraahdo quuquule oo ka soo baxo meelaha tiimanka hoostooda bahalkii ay ugu soo baxay صح orodkaan orday horta dharka waa ka tegay wixii dharkii la wala soo noqday wixii dhar la dhahay wala hooyadiisu ma qablantaa la soo wixii dhar la dhahay horta ma jooga uga tegay صح waa ooye waa galgashay صح geedkiina waa ugu hor ordaba marka aniga ka orday asaaba iga ordaba صح من لفتي سو بقية يا أنا نفط على بقية nafteeda u baqay صح walax quuqulahaas igaga daran niyahow ma arkin صح jilbii waa iga murxeen xusulladu waa murxeen wixii dharahay waa ka tegay لا إله asagana wuu iga roorooyaa صح anigana waa ka roorooyaa kaas horta wax iga daran Ma ma arkin laakiin waxaa la yidhi fulay yaa hooyadiis ma qablanto hooyadii ma gablanto inaa fulay ahaato ku fiican tahay maslaxadaa ku jirtee maslaxadaa ku jirta waa idin salaameynaa asxaabta quruxda badan soo dhawaada waxaan siinayaa fadlan haddaad nagu cusub tahay subscribe like share and comment haddaad hore noola joogtana waxaan kaa rabnaa teeda kale waxaan idin sheegayaa good news ayaan idin haynaa maalmaha nagu soo aadan hadduu ilaahay ka raali noqdo waxaan idin soo wadnaa kilibyo macaan badan ee ka hadlaya short filmisyo waxyaabo taariikhi ah waxyaabo muhiim ah ka hadlaya insha Allah nagu xirnaada time aan sameyn doonaa waqtiga la soo deenayo wax aan kala go'aynin oo socon doona insha Allah idin soo gudbin doona asxaabteena